magaalada muqdisho ayaa martigelisay kulan si hersare ah loo soo agaasimay kaasi oo isugu jiray daafurka dib u dhiska mowlaca weyn ee jaamacadda reer Sheekh Cali Cilmiyare iyo munaasabad mahadcelin ah oo loo sameeyay dhammaan dadkii ka qayb qaatay hirgelinta xaruntan qiimaha badan. xaruntan barakeysan ayaa waxa aasaasay dhulkeedana bixiyay caalimkii Soomaaliyeed Sheekh Cali Cilmi Faarax oo si weyn loogu yaqaanay Sheekh Cali Cilmiyare. Allah u naxariistay wuxuu booskan u waqfay in lagu faafiyo diinta Islaamka si uu u noqdo meel ay bulshada ka helaan ilmi, cibaado iyo hanuun toosan. Tani waxay cadeen u tahay aragti fog iyo dadaal uu ku doonayay in jiilasha dambe ay ka faa'iideystaan khayr joogto ah iyo sadaqo jaariye ah. xaruntan cusub oo ku taala xaafadda Geed Jecel ee degmada Warta Nabadda ayaa noqotay iftiin cusub oo u soo baxay bulshada, waxaana munaasabadani ka soo qayb galay culimo waaweyn, ganacsato, waxgarad iyo marti sharaf kale. jawiga munaasabadda ayaa ahaa mid aad u qiimo badan oo ay ka muuqatay farxad, isxilqaan iyo isku duubni bulsho. intii ay socotay munaasabadda waxaa goobta ka hadlay guddigii loo xil saaray dhismaha xarunta, injineerkii hirgeliyay mashruuca, mashaaqidii ka soo qayb galay munaasabadda. dhammaan hadaladii la jeediyay waxay xambaarsanaayeen duco iyo bogaadin loo diray ka qaybgalayaasha, hirgelin ku wajahan sidii loo sii wadi lahaa khayrkan oo kale. munaasabadan oo ahayd mid muujisay in marka la mideeyo dadaalka iyo niyadda wanaagsan la gaari karo horumar waara. xaruntan cusub ee mowlaca ah ayaa noqon doonta hooy cibaado, cilmi iyo wacyigelin diini ah oo faa'iido weyn u leh bulshada. waxaa si gaar ah loogu mahadceliyay dhammaan intii ka soo qayb qaadatay dhismaha iyo hirgelinta xaruntan, iyada oo lagu booriyay bulshada inteeda kale in ay ka qayb qaataan mashaariicda noocan oo kale ah. walaalayaal sida alla socotaan waxaa soo socday gurigan sheekha dhismihiisa ayaa soo socday oo muddo la soo waday oo rag akhyaare ay soo wadeen oo maalkooda iyo naftooda iyo hantidooda ay u hureen. waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran, baarakallahu fiikum. walaalayaal fari kama qodna, waxaa weeye waxyaalaha khayrka ah oo loo baahan yahay oo culummadu ay u baahan yihiin oo axbaabtu ay u baahan yihiin aad iyo aad ay u badan yihiin. intaan inaan kaga harna ma ahan. meel kasta oo gobolka Banaadir iyo meel kasta oo culummadu joogto waa inaannu noolaynaa, waa isku tiirsannaa oo aan iskaashannaa oo sidaan oo kale iyo maqaamkan oo kale aan meel walba ka hirgelinnaa. ducada iyo mahadcelinta gurigii khayrka badnaa ee sheekheeni Sheekh Cali Cilmiyare raximahullahu tacaala wa jazaahu allahu canna wa cala almuslimiina khayran. 58 sano ka hor uu aasaasay beytu cilmiga ahaa. beydkaas oo binihiisa iyo dhismihiisa dib loo soo celiyey ayaa maanta loogu ducaynayaa, looguna mahadcelinayaa intii ka shaqaysay oo ka qayb qaadatay. guriga runtii sheekha xilli aad iyo aad nolosha ay u adag tahay oo carrada xarta iyo dalabadu ay qariib ku yihiin baa sheekhu dhisay. sidaanu ognahayna sheekhu xamar awlaadu sulbigiisa guri ugama dhisin, laakiin dadka ugu abtirsada diinta iyo ruuxda ayuu sheekhu xilli xaaladdu ay adag tahay ayuu muqdisho gurigan ugu aasaasay. hadafka iyo ujeeddada sheekhu uu ka lahaana waxay ahayd guri qabiilo ma ahayn, guri qof leeyahana ma ahayn, guri uu ugu talagalay dadka ahlu cilmiga iyo dalabada ka imaanaya nawaaxida iyo gobollada kala gedisan iyo meelaha kala duwan oo isugu abtirsada diinta inay gurigan ay ku kulmaan oo ay isku bartaan oo ay isku caawiyaan oo ay isugu faa'iideeyaan, ku kala faa'iidaystaan, isku jeclaadaan ayaa sheekhu ugu talagalay. waxaan u mahadcelinayaa awalan ilaahay subxaanahu wa tacaala na makaniyey kulankan aad u qaaliga oo sharafta badan ee ilaahay dartii loola jeedo. kulankan oo laga wacay akhyaar aad noogu qaali ah ee dalka hadda muqdisho nala jooga, aana rabno inaan ku lifaaqno raggii la midka ahaa oo iyaguna intoo kale in loogu mahadceliyo mudnaa oo dalka dibaddiisa jooga sida Nairobi oo kale, sida Maraykan oo kale. kulankan ujeeddadiisu waxay ahayd gurigaan hadda joogno oo ah gurigii sheekhanaga Sheekh Cali Cilmi Faarax uu waqfay, in dadkii ka soo qayb qaatay guddiga Sheekh Daahir uu nagala joogo ay ka mid yihiin ugu horeeyaan raggii wax bixiyana ay ku xigaan inaan idhaahno axsantum axsanallaahu ilaykum wa jazaakumullahu khayran. adduunya aakhiraba allah idinkaga liibaano wixii aad ku dadaal ku bixiseen. si khaas ah reer Nairobi oo aan la baashiray tagay dadaalka ay galeen aan ogaa. waan u mahadcelinaynaa raggii sida khaaska u dadaalay muxuu ahaa gudoomiyihii
jaaliyaddaas oo uu ninka la yidhaahdo sheekh nuur uu ka mid yahay raggii hoos u dadaalay jimcaale iyo jimcaale geedi iyo guuleed iyo ay ka mid yihiin raggii iyo ninka la yidhaahdo sheekh axmed iyo bashiir dheere iyo raggaasi raggii ay iyagu noo aadeen iyo iyaga laftirkooda iyo raggii kaloo dadaalay iyo sheekh nuur uu ka mid yahay iyo dhammaantood waxaan leenahay axsana allaahu ilaykum wajazaakum allahu khayr ragga la midka ah oo iyagu ay nooga tarjumayaan iyo ayagaba waxaan leenahay ilaahay axsanu jazaa idinku amaal mariyo waxaa raynrayn noo ah inaannu ka soo qayb galnay xafladdii lagu gebangabaynayey gurigii sheikheennii sheekh cali cilmi faarax uu noo dhisay oo ku waqfay sheekh uways alqaadiri ee dhammaystirkiisii ayadoo loo mahad celinayo dhammaan intii ikhwaanka ahayd oo ka soo qayb qaaatay dhismihiisa waxaannu leenahay jazaakum allaahu khayran axsantum wa axsana allaahu ilaykum ilaahay ajar weyn hadinku abaal mariyo waxaan tagnay qolo raadiya u tagnay kulmiye la yidhaahdo markaas wuxuu yidhi masaajidka waa la bilaabaa oo markan waa la bilaabaa lakiinse lama soo afjaro oo lama yidhahdo masaajidka waa dhammaynaye maca salaama lama yidhahduu yidhi marka hadda culammada waxaa ugu yeernay in gurigii noo dhammaaday daynkii naga baxay farxad aan joogno lacagtaan gogoshaan ku dhigannay aan xataa nala ku lahayn intaas culammada ugu yeernay in nala ogaaday ikhwaanka iyo ikhyaarta inaad aad iyo aad maarata waa ducaysanaan aan kugu yeernay in aad farxaas aan qabno nala qaybsataan inta maqan oo Kenya niman naga soo taageereen Mareykan inooga yimaadeen Canada meelo kale oo si tiro badan khiyaartaasna waxa weeye waa intaas ay nala mid yihiin quraanka aqrinay wax ku leeyihiin ducadaan ducaynay wax ku leeyihiin waxay wax ku leeyihiin nolosha gurigan iyo sadaqada iyo hawsha wax ku leeyihiin marka waqtigu waan si kooban yahay mahad celintaas khiyaadan kugu yeernay aad iyo aad idinku mahad celinaynaa anigu waxay aan kala kulmaan sheegayaa waxaan la kulmay mashhuurnimo iyo wanaagnimo gurigan shaqadiisaan u bilaabay waxaan mashhuur aan ahayn ayaan noqday meel walba in layga waco intaasoo masaajid iyo intaasoo mawlac ayaan dhisay iyo intaasoo guriya intaas karaamo weyn baan ku arkay kala kulmay ragga dhisay iyo ragga soo abaabulay iyo shiikhii dhulka bixiyey ama dhisay markii hore way mahadsan yihiin doonayo khayra kulli allah noo kulmiyo shara allah naga kaafiyo cusriga yusriga allah noogu bedelo colka cudurka abaarta shiddada allah naga qaado diinta islaamka iyo ahalkeeda allah kor yeelo baadil iyo ahalkiisana allah dejiyo allahumma salli calaa sayyidina maxamed